Assalaamu calaykum. Soo dhawaad saaxiibayaal meel kasta ood ka joogtiin dunida daafeeda. Magacaygu waa Axmed Faarax. Halkaan nagala socotiina waa Himila Media Production iyo sidoo kale Himila High School. Saaxiibayaal waxaa noo socday cashirkeennii Windows 10-ka. Khaasatan maanta waxaan qaadan doonaa cashirkii sagaalaad ee Windows 10-ka. Cashirkan sagaalaad maanta waxaan ku baran doonaa saaxiibayaal sida aad ku soo aragteen title-ka hore ee muuqaalka waa maxay another account. Another account maxaa la yiraahdaa? Hagaag saaxiibayaal sidii noo caadada ahaydba waxaan soo furi doonaa mar kasta oo aan ka shaqay doono ama maartay aan wax ka sheegi doono programmada computerka ee wax ka mid ah control panel-ka sababtoo ah control panel waxaan soo sheegnay in ay tahay sitika computer control panel marka soo furtid haddii ay saan kuugu soo baxdo horena waan kuugu sheegay flash ayaa soo furaysaa kadibna halkaas ay ugu qoran tahay large icons ayaad ku dhufanaysaa saaxiibayaal maanta muuqaalkeenu waxa uu ku saabsan yahay user account wax la yiraahdo ayuu ku saabsan yahay bal ugu horreyn horto user account-ka aan soo furo user account-ka saaxiibayaal markaas aan u soo furo waxyaabo badan ayaa meeshan ku jira hadday ahaa lahayd account-ka namekiisa nooca uu yahay haddii aad dooranaysid hadda aniga meeshan waxaa igu qoran BC local account administrator hagaag account-ka markaa meesha hadda aniga BC ka dhigay haddii aad rabto adiga magacaaga inaad la baxdo waxaa ku dhufa doonaa halkaas ay ku qoran tahay change your account name haddii aad rabtid account type-ka inaad bedeshid type noocaad ka rabtidba waxaad dooranaysaa halkaa ay ku qoran tahay your account type halkaa ay ku qoran tahay change your account type ayaad ka dhufanaynaa saaxiibayaal annaga muuqaalkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay waxa la yiraahdo another account iyo qaabka loo sameeyo bal haddaba si aan u sameeyno another account iyo weliba qaabka u shaqada wax u ogaano waxaan ku dhufa doonaa halkaan ay ku qoran tahay manage another account saaxiibayaal marka ku dhufano kadibna qaybtan ayuu keeni doonaa halkaan hoose ay ku qoran tahay add a new MBC setting ayaan ku dhufanaynaa waaya tusaale ahaan aniga haddeertaan computerkan cashir ayaan ku bixiyaa sidoo kale waxaan rabaa anigoo cashir ku bixiyo in ardadu ay ku qaadato practical ee cashirtay qaataan ku practical ayaan rabaa marka maadaama ardadu ay practical ku qaadeen anuguna cashir ku bixinaa waxaa dhici karta ardadu inay marka qaar iga tirtiraan xogta computerka haddaba si taas u dhicin waxaan samayn doonaa wax la yiraahdo another account qaybtaas another account-ka arday kasta markuu yimaado ayada ayuu ku practical doonaa waa qayb computer ka mid ah sida qaybtan u shaqeynaa inta qaybtan leedahay laakiin aniga xogteeda wax saameyna kuma ay yeelo doonto waaya bal haddaba saaxiibayaal si aan ada account u sameeyo waxaan samayn doonaa halkaas ay ku qoran tahay add some else to this PC halka ku qoran tahay ayaan ku dhufa doonaa waaya marka ku dhufto qaybtan ayuu keenaa halkan waxaa leeyahay account-ka namekiisa geli halkan waxaa gelidaa passwordkiisa meeshan reenter password ay ku qoran tahana waa waxa hadhow passwordka ku soo xasuusan doonto tusaale ahaan aniga hadda waxaan leeyahay account-kan waxaa u bixi doonaa ama user-kan waxaa u bixi doonaa student ayaan u bixi doonaa hagaag student markaa u baxsho kadibna waxaan leeyahay next oo waxaa password aniga u samayn maayo waxaan rabaa markaa qaybtan aan ku qoray studentska inaan shaqaysiiyo si ay ardaydu ugu practical karoodaan ayaan rabaa marka waxaan isticmaali doonaa kamerad kale ayaan isticmaali doonaa taleefka kameradiisa ayaan soo fura doonaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa kamerada screen record-ka oo hadda aniga computerka aan ku duuba haddii aan maago waxaad samaydaa account kale soo furdaa maago inay taas danto ayaa laga yaabaa markaa si dee taas u danto aysan xog noo dhaafin ayaan waxaan isticmaali doonaa kamerada mobilka ayaan isticmaali doonaa saaxiibayaal waaya kamerada mobilka ayaan hadda soo furanay kamerada markaas u soo furatid waxaad samayn doontaa ugu horreyn si account-kan aan u shaqaysiiyo waxaan ku dhufa doonaa halkan window-ga ayaan ku dhufa doonaa kadibna halkan ay ku qoran tahay BC ayaan right click dhihi doonaa waxaan dhihi doonaa waxa ay soo kicidaa account-kan la yiraahdo ku qoran tahay students isoo ayaan dhihi doonaa programka computer-ka hadda wuxuu samayn doonaa sidii inaan window ka bedel camal ayuu noqon doonaa waxaan dhihi doonaa qaybta student-iga kadibna waxaa leeyahay sign in markaa yiraahdo sidaan ayuu ku saaxiibayaal computer-ku noqon doonaa waxaa la yiraahdo welcome waxaa la soo furaa aniga user cusub ama shaashad cusub ayaa la soo furaa sababtoo ah programkii hore uu ku shaqeynayay ama shaashadda hore uu ku shaqeynayay waan ka guuray shaashadda hadda ku shaqeynaa waxay noqon doontaa mid cusub midaan aniga waxa ugu talagalay ardaydu inay ayagu ku practicayaan ayaan ugu talagalay saaxiibayaal waaya waxaan sugaa markaa inta shaashaddan ay dhamaanayso saata markuu intaan dhameeyo qaybtan yarta ayuu soo saari doonaa qaybtan markuu soo saaro halkaas hoose ay ku qoran tahay accept ayaad ku dhufanaysaa kadibna shaashaddan ayaa ku soo furan doonta waxaa u jeedaa hadda computerka inay noo soo furantay shaashad nadiifa ayaad u jeedaa oo wax saaran aysan jirin markii laga reebo programmada computerku oo la soo noqon lahay hagaag
marka shaasdan si ugu soo daro barnaamijyada ka maqan si ugu soo daro waxaan dhigi doonaa right click kadibna halkaas ku qoran tahay personalize ayaa ku dhufan doonaa waxaan sameyn doonaa in aan ku soo daro desktop icons in aan ku soo daro ayaan sameyn doonaa samista ka sii doorana kadibna waxaan leeyahay desktop icons ka meesha ka maqan ay ugu soo daro waa kuwaana saaxiib checkta ayaan sidaas u saaraa kadibna waxaan leeyahay apply okay ayaan leeyahay hagaag hadda waxaa ujeedaa shaasdan cusub ayaa la soo furay shaasdan hadda waxay u diyaarsan tahay inay ardadu ku baraatikeeyaan ayay u diyaarsan tahay saaxiibayaal waaya waxaan rabaa markaa tusaale ahaan ardaydu markay u yimaadaan computerka waxaa computer ku jira logo kale saano kale ayuu computerka loogu jiray asoo saan computer loogu jiro markay ardaydu u yimaadaan waxay samayn doonaan inay computerka soo kiciyaan qaybtan kore ay ku qoran tahay PC halkan ay ku qoran tahay PC saaxiibayaal ayaa waxay tahay qaybta aan anigu leeyahay oo adminka qaybta marka password ayaa ku xiran oo ardaydu ma geli karo hayaan ardaygu marka arday kasta wuxuu samayn doonaa qaybtan hoose ee anigu magac darnay studentska ayuu saaxiibayaal soo furi doonaa waaya qaybta studentska marka arday walba soo furo kadib wuxuu dhigi doonaa sign in ayuu dhigi doonaa sign in oo halkaas ayuu ku sii dhufa doonaa hagaag shaasada ayaa soo furmi doona laakiin haddii ardaygu oo yiraahdo waxaan soo furaa qaybtan la yiraahdo adminka soo fura haddii oo yiraahdo waxaa la weydiin doonaa password ayaa la weydiin doonaa asagoo password gelina ma soo furi karo hagaag waaya أنا مرة حاسة ما يدونا سي أنا أكون كان ماشي وصاروا حاسة كيدونا خيبت بيسي أما أدمك أيا سوق كيدونا كده من واحد قليدونا باسورد كي مرة قال شو خيبت ساعة وصار سي أنا أكون كان مرة ماشي وصاروا حاسة فردونا كونتر وبانا كده من واحد كسي دورنا هكا يكون قرطة يوسر أكو يا كسي دورنا كده من حاسة ما يدونا سي أكون كي كله عن ماشي وصاروا تو معناه أنا أكون مرة قرطة أكون كان ستودنت كي يدل تكيا كده من واحد ليه هاي دلت أكون أيان ليه دلت فايل سياسي ليه كده من دلت أكون أيان ليه oo akoonkan gabi ahaantiiba meesha ka saar ayaan dhigi doonaa hadda waxa u jeedaa computerka hadda aan iraado qaybtan qadami qaybta kale soo kay waxa u jeedaa qaybta studentiga in ay meesha ka baxday ayaa u jeedaa saaxiibayaal waxaan filaa qof walba oo inaga mid ah way fahamtay sida loo sameeyo waxa la yiraahdo anaada akoon iyo waxa uu qabto anaada akoon wuxuu ka saacidayaa waxay tahay computerkan inay ardaydu baraadka ku filan ku qaataan aduguna xishad ku bixid adiga ardaydu si u kala badbaadin marka laba user ayaa wada isticmaali doontiino hal computer ku wada shaqeynay hadii ay tahay markuu warsi muuqaalku soo gaar muuqaalka Lexar sina share garay qaybta hoose ee commentiga wixii su'aal ay qabtid inoogu qor sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe saartid kadibna furtid gambaleelka si aysan ku dhaafin casirta xiisaha leh ee halkan ka socdo kuma hadsanid daawashada